magaalada muqdisho ee caasimada Soomaaliya waxaa weli ka socda shirka golaha wadatashiga qaran ee u dhaxeeyo ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble madaxda maamul goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir. Shirka oo ah mid xasaasi ah ayaa waxaa looga hadlayaa xaaladda cakiran ee dalka iyo arrimaha doorashooyinka, waxaana maanta ku biiray ururada bulshada rayidka iyo haweenka. xogo xasaasi ah oo shirka laga helay ayaa sheegaya in shirka uu qarka u fuulay in uu burburo kadib markii madaxda maamul goboleedyada ay ku qaybsameen laba qodob oo ay adag tahay in xal laga gaaro. qodobka koowaad ee la isku fahmi waayay ayaa ah amniga guud ee dalka. ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble ayaa ku baryootamaya in lagu wareejiyo amniga dalka, waxaana qorshahaasi ku cadaadinaya midowga murashaxiinta mucaaradka. balse Maxamed Xuseen Rooble ayaa ilowsan in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu yahay taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida. sidoo kale waxa uu Rooble iska indhatirayaa in madaxweynaha uu mas'uul ka yahay amniga dalka ilaa laga dooranayo madaxweyne cusub. xubno ku dhow madaxda maamul goboleedyada ayaa laga soo xigtay in madaxda maamulada qaarkood ay ka hor yimaadeen qorshaha Rooble ee amniga dalka. madaxda diiday waxay kala yihiin madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor, madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen, madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish. Maxamed Xuseen Rooble ayaa kulankii maanta kala soo laabtay guuldaro iyo niyad jab. qodobka kale ee la isku hayo ayaa ah ku laabashada kuraasta qaar. midowga murashaxiinta mucaaradka ayaa soo jeediyey in lagu laabto kuraasta qaar ee golaha shacabka, kuwaasi oo ka dhashay dood adag. waxaa sidoo kale qorshahan diidan madaxda taabacsan madaxweyne Farmaajo. kuraasta suurtagalka ay tahay in lagu laabto waxaa ka mid ah kursiga Hoob 239 oo uu ku soo baxay ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar. kursigaasi dood adag ayaa ka dhashay. sidoo kale kursiga Hoob 67 oo uu ku soo baxay taliyaha ku-meel gaarka ah ee Nisa Yaasiin Cabdullaahi Farey ayaa lagu laaban doonaa haddii la isku raaco qodobkan, balse way adag tahay in labadan qodob ay ku heshiiyaan golaha wadatashiga qaran.